شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاوة بشير رمضان والصدح هي لواتم وهذا الذي ترى إسلمان هاي إلا في ليلة القدر waxa ay ku soo beegantay habeen jimcaha marka culimadu waxay leeyihiin waa waqtiyada loogu rajo badan yahay sida uu tilmaamay rahimahullah ibn Taymiyyah iyo ibn Rajab al-Hanbali labada sheekhba markay masalada ka hadlayaan waa laba arimood oo waaweyn oo iswaafaqay bay leeyihiin nicmooyinka Ilaahay inuu dareenaana aad bay muhiim u tahay ilaa 9 nicmo ayaynu rajaynaynaa inuu haysanayno Allah inoo barakeeyo taw horeyso waynu soo soomanayn Allah inaga aqbalo salaadiina waa u taagantahay quraankiina waynu akhriyayna i'tikaafkiina waa ku jirnaa cilmigiina waynu dhageysanaynaa habeenkuna waa ka aan soo sheego waa habeenadii laylatul qadriga la filay waana jumce caalamkii korona wuu inala joogaa oo inuu uga jeedno malaa'ikatul rahmaan ورسول صلى الله عليه وسلم سيدو تلمامي ميل كستا oo Ilaahay dhikrigiisa lagu hayo iyo kitaabkiisa la isku wacdeeyo malaa'igtuna way la joogaan xadiidkii caanka ah sida uu tilmaamay naxariistii Ilaahayna way ku soo degaysaa inta Allah inoo aqbalo mid kale oo laga yaabo inaydan aad u sii dareemin idinku iyaduna way jirtaa mar haddaad wadankaaga islaamka ha joogto oo cibaadadaadii oo diintaadii iyo aad xor u tahay iyo cibaadadaadii iyaduna waa wax weyn waarinaana haysanin walaalaheena dabada ku nool ee cibaadeysanaya in badan oo kamidi oo wadamada gaaladu ay qofka sooman shaqadaba ka joojiyeen sida Danishka iyo waa maqlaysan maalmihii dhawaa mar rabna way dhaan qof soon iyo waxa wadwada inuu agteeda soo maro marka qof dee cibaadadiisi ay calani tahay oo jawigo dhan cibaado u diyaariya iyo qof cibaadadiisi suuq madow tahay iyana waa laba arrimood oo kala fog inta markan ka imaado waxaan wax yar ka oran lahaa qodobo kooban laylatul qadriga Allahina waafajiyo laylatul qadr qodobka koobaad aan wax ka oranaya waxa weeye sababu tasmiya maxaa lagu magacaabay laylatul qadr saddex arrimood daraadood ayaa lagu magacaabay bayleen culimadu mid weeyaane waa habeen wax la qadaray sidoo Ilaahay ku xusay quraanka ba فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا هبين كاسا wax badan Ilaahay oo qadaray buu caalamka soo gaarsiiya malaa'igto markaasuu raada sida uu kala furi mid baa la casilaya mid baa la dalacsiinaya mid baa geeriyoonaya mid baa dhimanaya mid baa saasay u soconaysa waa habeen Ilaahay uu qadaro qadarkii bay marka arintu ku lug leedahay waxa labaad oo lagu magacaabay وشرف ليلة القدر وهبينك شرفك وما قدر الله حق قدر قالوا إلهي كورم يوم مركزان ربي وحاولي إلهي ما يشرفين وما يوينين قدر كتانا وكسعلا قدر كوحا صدحاضا وكأيمان كراه من قدر بمعنى طاقة لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله وقدر وكتمي حق عريريغا habeenka ku jira muxuu yahay daa عريريغا ku jira waxa weeye malaa'ig baa soo degaysa aad u fara badan tanazzalu al malaa'ikatu war ruuh meel waliba way buuxdaa marka saxmadii malaa'igta
ayaa cidhiidhigaasi uu ka imanaya cilatu tasmiya saddexdaa arrimoodba waa lagu sheegay waa meelaha u baahan la isdul taago habeenkan isagaa qur-aanka 4 suuradood ayaa ilaahay ku sheegay mid waa suuratu addukhaan inaa anzalnaahu fii laylati mubaaraka qur-aanka waxaan soo dejiyey baa ilahay uhi habeen barakaysan qur-aanku wuu barakaysan yihi kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarak kitaab baan kugu soo dejiyey buu ilahay yihi barakaysan bal ka waran isagii ay isteleen habeen barakaysanna inaa anzalnaahu fii laylati mubaaraka waxa labaad oo ilaahay uu ku sheegay suuradda looguba magac daray ee suuratu lqadri la yidhaah ee wada taqaaniin inaa anzalnaahu fii laylati lqadri wamaa adraaka maa laylatu lqadr suuraddaasoo dham habeenkaasi ka warramaysaa iyo barakadiisa waxa saddexaad oo culimada qeyb ka mid ah ay ku fasireen habeenkan habeenada uu ku jiro si gaara inuu ilaahay qur-aanka ugu calaamadiyey waalfajri walayaalin cashr wuxuu ilaahay ku dhaartay waaga baryaya iyo habeeno 10 laba qowlun bay ku fasireen culimadu habeenada 10ka ah qolo waxay leeyihiin waa habeenada laylatul qadriga uu ku jiro ee 10ka dambe rabadaan u dambeeya qayb ka midna waxay leeyihiin waa habeenada maalmaha 10ka ah ee u horeeya bisha carafa ee xajka iyo camaladiisii la gudanayo marka aad eegto labada qowl de qowl wuxuu ku fasirayaa inuu maalin yahay habeenadani waa maalin ay leeyihiin qowlna wuxuu leeyahay waa habeen de ka habeenkay ku sii cadda ila maalinkuna waqtiga qoraxda la yiraahdo habeenkiina waqtiga madow dayuxu jooga la yiraahdaa marka labada qowl kana ku sii cad habeenkii habeen ku sheegaya waxa saddexaad oo habeenkani si dadban ugu sheegay waxa afraad suuratul baqara shahru ramadaan alladhi unzila fihi alquran wa bishi quraanka la soo dajiyay marka quraankiina ilaahay wuxuu tilmaamay habeenka in la soo dajiyay laylatul qadriga taa macnaheedu waxa weeye waxay la mid tahay habeenka ku jira ramadaan si dadban buu halkaan ugu sheegay markaynu intaa ka nimaadno habeenkan isaga ah waxa uu leeyahay calaamado lagu garto minha almuqaarin wa minha almulaahiq calaamado la xidhiidha iyo kuwa ka dambeeyaba inaha ay culimadu daraaseeyeen nusuusta iyo ay ka keeneen khibradooda ama intay ka arkeen waxa kamid ah calaamadahaas quwwatu al-idaa'ah fi tilka al-layla habeenka iftiin baa jira siyaada ah inkastoo ay arki karaan bay leen dadka meelaha cidlada ah jooga laakiin qofka de leyrkan faraha badan jooga waa laga yaabaa inaanu aad u arag waxa labaad oo calaamadaha kamid ah atumaaniina xasilooni dadku ay helayaan iyo deganaasho waxa saddexaad oo calaamadaha kamid ah deganaasho dalka laftiisu leeyahay wixii habeenada guuxi jiray iyo wixii buuqaya iyo duufaanadii iyo dabaylihii waxa suu ilaahay kala joojinaya ila caalamkii kala soconaya malaa'igtii waxa afraad oo calaamadaha kamid ah dhawqul cibaada dhawq fil cibaada inay cibaadaduna dhadhamayso qofka habeenka macaan cibaadadu ay leedahay calaamooyinka mulaaxiqa ka daba imanaya waxa kamid ah sida xadiidku cadeynaya saxiixa ah in subaxdii ay soo baxdo qorraxdu iyadoo saafiya waxa ka faa'iido hadii habeenkiiba tagay waxa ka faa'iido inaad bushaaraysato oo aad dareento xalay oo aad u soo cibaadaysanayso ducaysanayso inuu ilaahay ku waafajiyo markaad calaamadii aragto qorraxdii oo aan shucaac fallaarihii ka yar yihiin oo sida dayaxa saaka u eg tastabshir waad bushaaraysanaysa rajo weyn baad qaadaysa asxaabta qaarkood waa calaamada lixaad waxa u dheeraa inay ilaahay manaam ku arkeen subxaanahu wa tacaala iyaduna waa wax wanaagsan oo arrin suuragal ana weeye ilaan culimadu lixdaas ay calaamooyinka sheegaan inaha ay soo ururiyeen habeenkan isaga fadaa'il buu leeyahay ilaa 7 aynu ka soo qaadan karnaa fadaa'ilkiisu way badan yihiin midda koobaad ilaahay wuxuu tilmaamay hibadii iyo hadiyadii u weyneyd inuu habeenkan ilaahay umada siiyay waa quraanka kariimka deeqdii ugu ballaadhnayd waa kalaamkii ilaahay ee ilaahay ummadan uu siiyo waa habeenkan la siiyay waa fadligiisa waxa kamid ah habeenkan isaga ah inuu ilaahay tilmaamay umur badan inuu qadaro go'aamada ilaahay baa soo baxaya ee fulintu uu yaala markaa fiha yufraqu kullu amrin hakiim habeenkan quraanku wuxuu tilmaamay inuu barakaysan yahay barakana maxay baraka waa wax ka qiimo badan badnaanta wax badan oo aan arkayn baa barakada ku jira markuu shaygu barakaysan yahay hoostu ka soo maaxaa soo ma taqaanid maaxda ceel aanad arkayn meel biyiisu ka imanayaan oo dhammaan la marka shayga barakaysani
وشيء كقيمة بدن بدنان وقرآنك وتلمامي هبين كايسجاه إنه كخير بدن هاي محي كم بلاد خير من 1000 شهر كم بلاد هدول هاي كوافتية هبين كاسو كلية هل قرني وحكو دوبه هرو بودي عمرقاقي وحو هرو كعاي هل قرني وحكو دوبه وكوتر سيء وحا قرآنك إلهي وكحس سبحانه وتعالى هبين كاس إنه ملايك تسود دقيسو محاد كوي ده هدين ملايك تسود دقيسو ميدو وين إن كبر شارع السنة مال هدين ملاك تسود دق خيرون ده خير إلهي بعد هميو كبوح مالنا هدين الشياطين كسود دكتب بلايا كأورينيس بركة كل هدين ملايك اتماده وحا هالكا لقى فهم يا الشيطان فردي بدر ونخر قال انتي بدر شيطان كوحو ماله وروريقا مركو أركي جنودي إلهيو soo degayso caalamka kore ka soo daadegaya waa kii firdhaday malaa'igtaasi haday noo yimaadeen habeenka aad u fara badan yihiin waxay buufiyeen bahalkii la oran jiray bahalkii bani aadamku cuni jiray shaydaanka la oran jiray habeenka quraanku wuxuu tilmaamay waa fadliga lixaade salaamun hiya hatta madlac al-fajr wa nabadgeli waxaad ka nabad gashay shaydaanki waxaad ka nabad gashay macaasidi waxaad ka nabad gashay balaayooyinki waxaad ka nabad gashay sharki waxa fadli weyn oo toddobaad rasuulku sallallahu alayhi wasallam xadiidkiisa saxiixa uu ku tilmaamay wixii aynu la rooreynay inuu ilaahay naga reebayo allah inaga reebo ee dambiga ahaa man qaama layl wa man qaama laylatal qadri iimanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi dambigi baa la jafaya ka waaweyn allah inaga raaciyo maxaad inoogu miyaysaa ka yaryar iyo ka waaweyn labadaba allah inaga reebo habeenka isaga ah waxa soo fadaa'ila يا وحاسو قيمة ولا وحيس ويدين لهم هل كان الله آنين يا تاتين بدن بوعدك كم قشة تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان حديث الصحيح أساس النبي كل عليه الصلاة والسلام كد دلالة هذين كان ترى إسلمان طبعا كبشوا تنبيه رمضان ترى إسلمان كد دلالة يدو كل يوم طبعا كيلو وده دلالة ما لها سالة مسي دلالة قضبك لحاله إنه حكى ورنا لها وحوي هذين كام حال قبنايا هذين كانوا حل قبنايا لبا أرمودهم عبادة هي الدعاء دعاء بعبادة ذي كمت وقيام كي قرآن كي يسوته القرآن كهذين كي لقوا عبادة يسوت وكان حديث كان إنه آخرين عطينا إياه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه لما أرانيك مفرش كفريستا لما أرانيك قرحية قمحية بوقية لما أرانيك مالك لا أردية أما عيارية وحل إقامة أنا ذهب إلهي هرتاج أنت يا بينك كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك سيدا ذرك يسوك لا إلهي عابدس هذا أنا ذرك إن يسقاك وأركيه إياك نعبد وإياك نستعين إلهي بذ هرتاج أنت يا بينك كاسو يسوك بيج يا برنامج خيرك وحلا بعضه بينك الله قبنا يا سيدا حديث صحيح كسوق إلا الدعاء يستو عايشة واحد المحان هذا يا بينك يقول هاي وافتشيه محور مركا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني حين يدنا يسير دول تاجينا الدعاء والله ضافاونه يدنا فائدة كترته وعلينا عفس كاس وعفو من الأبدان وعفو من الأديان وعفو من الديان عفو الأبدان والأديان ومن الديان سبحانه عفس شركة عذر هذول هاي كعفية دي الدعاء هو فقده عذر بدنا دخترك وكروا وما لها تبدل الله لا عرّ لقى سوق قوستي أيوة لهاي عافمات كاسينة الديان هذه الرقم كاجو لهاي كوسة حياة توفيق وكسينة خير كوكو وافتشنا مع سيدي بلادنا وكادوية وعفو من الديان إله الرحمن كأه آيات كه ليس سامحات إنه كاسامحه وحي هراء إتجي وكذلك عفو من الفقر هذا الفقر قسمينا نوعين ليش يسينا ولا طورية الله ينقر يا أبو حاول دليله يسألونك ماذا ينفقون قل العفو نبي محمد هديك ويديين أصحابته محل بحنا يا واحد هذا عفس قال بحنا مركع عفسكم مربو سيادة النقطة هدات سيادة هالشنا وحي كسهر كذا سيادة الآن وفقر قاه أي استكاهرية مركع سرت كتر تدو عدن وحوي الدين يدويو دين تنا وهذا الشيء ولو سنة الدنيا دينا ولو سنة يا هدات انت إنه كفهم نسابق وما ينافهم سنين ملاها دينك تون بينكوا هاي دون
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وهذا ما أقوله وأستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.